Good morning. walaalayaal bal waxaan maanta Friends in Facebook. badan u jeedinayo And TikTok. mas'uulka oo lagu soo xadgudbay nuur waaye waa ka seesi Across wuxuu yiri many xadgudo badan ayaa borders gooyay nolosheesa oo to enhance my dad life. badan ayaa midoobay inay gacanta qabtaan But bal dhageysi many people unite to hold my hand by force. he can be president A bullying. fantastic A bullying victim is common in our nation, ayuu ninka luqadda ingiriiska ku hadlayay and this luqadda exists waa perfect More than century. maanta xildhibaana wasiira No one may asked be inuu xagga luqadda uga sarreeyo laakiin You can hurt your brother. ma imaan You can keep aad going. mashquulin sorry You can Hoo kill kala your galay. brother. dhageysta You can keep going. You can rob your brother. You can keep going. And that is the common problem wanting to find a solution. And the solution is victimka to bring justice to the people who behind la dabagelin qofku and kindly wuxuu yiri of walaalka waa dilaysaa waa dhacaysaa problem. waa dulminaysaa keep going hore ugu soconaysaa wuu yiri taas waa dhaqan laakiin people dhaqankaas in la xalliyo hold dadkii it dhibka back. geysta la keeno What they- cadaaladda what they Taas get waa. today? dhageysto haye nothing. what Me, I'm lost. what And they are lost. wuxuu kaloo yiri I lost everything in hal my guri life, ayay iga dumiyeen including job, kumanaan ayaa baaba'ay Jobless. Maxay ka faa'iideen what homeless. sax waay And they are homeless too Good. today. So they destroy single home of mine, and they lost thousands of homes. بما سبب يخبرسين ساعد ما قصعتها وقت ما كان ما when they punish me, when they punish me, they believe هذا Anur will never pursue them, dadka ma and that is wrong. Every action has reaction. sida loo soo dulmiyay iyo wixii laga If you are power, if If you are overpowered than me, English I can go to Allah. Allah will punish you as you punished me before. That is true. So, brother, is in Islam. markii camalaan laga dhigay lagu It's not wise. maxaa laga dhaxlay To hurt your brother. what If you hurt your brother, you hurt yourself. waa qasaar Because the sadness wuxuu kaloo and the yiri grief aniga way will return dhibaateeyeen to you one ayay day. is dhibaateeyeen waa dhaqan How matter or how long you deegaankooda happy, markay ku sugnaayeen happiness aniga waan will ka shaqaysanay end, and sorrows will come to you one day. As they felt today, their sorrow. waa bal dhegeysan So finally, I'm asking